عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر ولا دما صاحب الحنا جنال كنا بسون FX waxayna socota xaniini kursi tika haddana waxaa soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay ee qaybtii sagaalaad ee aan ku baran doono inaan maanta bilaabno suuqa forex maadaama aan soo baranay wixii hordhac ahaa wixii maxaa la dhahaa lacag waxay tahay erebixintoodii chartiska sida loo analyze garay everything marka soo aragnay hadda waxaa taaganahay albaabka koowaad ee suuqa forex laga galo oo ah inaan bilaabno markaa rabto inaad suuqa forex ka bilaawday waxyaalo waxaa jira marka lagaa rabo waxyaalana waa wax guud waxyaalana waa wax gaar ah marka muuqaalka marka waxaa ku baranaynaa laba shay oo ah basics alashaan oo ah general qof kasta oo rabo inuu suuqan ka shaqaysto waxyaalaha laga rabo iyo waxaa ku baran doonaa specifics oo ah qofka shakhsiyadiis wax u gaar ah kan adoo gaar kuu yahay kanna waxaa waaye waxaa la wadaagtaa basica qof kasta oo suuqan forexka ka shaqaysto ayaa ka wada mid tihiin marka basica maxaa ka mid ah basica waxaa ka mid ah qof inuu laptop haysto inuu internet heli karo inuu account online furto inuu software isticmaalo halka specifican ay ka mid tahay inuu qofku broker helo forex broker inuu helo oo ah qof dulaale oo u dhex maro oo maxaa la dhahaa oo ku xirta MP4kiisa informations inuu helo warbixin ama macluumaad oo newsada iyo waxaas kusay meesha uu ka helaayo iyo forex journal waxaa la dhahaa meel dokumentiyadaada ama xogtaada lagu diiwaan gashto iyo qofka inuu lacag doorto maadaama lacagihii aan soo sheegnay ahayn 7 lacag waaweyn guud ahaana 28 lacagood ay yihiin inuu lacaga qeyb ka doorto specific waaye ani haddii aad lacag aad doorto tusaale kale euro USD aad doorto adina waxaa rabtaa ama specific waxaa rabtaa GBP USD so marka waa waxa aanu kala duwanay saas oo kale waaye mid marka u dul istaagi doonaa waleedno basic horta maxaa waaye laptopka ugu horeeya qofka waa inuu suuqan bilaabo ama ka shaqeeyo suuq forexka waxa ugu weyn oo maxaa la looga baahan yahay waa inuu haysto laptop sababta uu helay maxaa waaye suuqan siisa waa wax online ku shaqeynayo shayga haddii mar online uu yahayne qofku wuxuu u baahan yahay inuu laptop haysto number 1 internetka waxaa ka horeeya laptopkaas marka waxaa waaye waxaa u isticmaali kartaa forex bisa u isticmaali kartaa hoola kalena waa u isticmaali kartaa lambar 2 qofku waxyaalaha oo laga rabo waxaa ka mid ah oo generalka ee qof kasta oo rabo inuu suuqan oo forex trader ah u baahan yahay waa internetka hadduusan qofkan haysanin ma helayo wax xog ah oo macluumaad ah qaab u galman maxaa yeelay waxaan dhan waxay ku xiran yihiin internetka shayga xigo oo qofka loogu baahan yahay waxaa waaye internetka marka waxaa waaye waa waxa ugu muhiimsan ee tradingka wuxuu ku siinayaa marka inuu qofkan ogaado lacagtii markaas uu galo tradeku markaas qaatay xaaladda uu marayo ama sell ma u qaatay buy haddaa u qaadatay meesha ay marayso khasaare ma kuu socoto faa'iido ma kuu socoto so wuxuu ku siinayaa marka access inaa waxa ay fiirsan karto qalabkaad waa arag kamaleyn haddaa muuqaal daawanaysid oo internetka rabta inaad ka daawatid haddii internetka oo youtube-ka soo gashay muuqaal aa ku socday muuqaalkaas mid qaybtiisa kale hadduu internet kaa go'o meesha uu marayo ayuu istaagsanaanaa sax so marka haddii marka adoo trade ku jirtay oo internet kaa go'o wixii dhacay kadib ma arkaysid internetka wixii ka dambeeyay so marka waxaa u baahan tahay inaad internet ku xiratid internetkana haddana waa nolosha bini'aadamka qayb ka noqday meel kastana hadda waa laga helaa miyi iyo magaalaba waxyaalaha kale oo commonka laga helo waxaa ka mid ah qofka inuu samaysto trading account ama online account stepka xiga waxaa waaye qofka inuu trading account furto oo maxaa waaye shirkado waxaa jira markaas oo akoono laga furto oo maxaa la dhahaa oo qofka siinayo account inuu ku furto online account online waxaa maadaama anaga aan rabno inaan suuqan online ugu shaqaysano waxaa u baahannahay markaas in account online aa samaysano akoonada online company waaweyn aa sameeyo waxaa ka mid ah FX Premium ka mid ah waxaa la dhahaa kambaniyooyinkaas waaweynka laga furtaa qofka markuu helo trading account online account markuu company ka furto wuxuu u baahan yahay inuu helo software qof kasta softwareka marka hadda inta ka muuqato waa software oo MT4 ah MT4 kaas marka isaga wuxuu qofku soo degsanaa
marka MT4 kaas marka wuxuu ku oggolaanayaa in suuqan trade gasho. Marka MT4 ka waxaa lagu xirtaa broker waa waxyaalaha specific buu ka mid yahay isagana waa arki doonaa. So marka MT4 kan iyo qaabkiisa ayadan muuqaal aan kasoo samayn doonaa qaabka loo isticmaalo application kaas. MT4 iyo MT5 qofka inuu soo degsado ama laptopkiisa ku degsado ama taleefankiisa ku degsado si maxaa la dhahaa oo ula socdo xaaladiisa. Marka qaybtaas waxay ahayd qaybtii oo maxaa la dhahaa oo basic-ka oo qof kasto looga baahnay. Waxaa jira marka specific-ka waxyaalaha qofka u gaarka ama qof kale uu uga duwan yahay. Waxaa ka mid brokerage-ka, forex brokerage-ka. Broker waxaa waaye waa dulaal, waa qofka u dhaxeeyo adiga iyo suuqan. Maxaa yeelay anaga waxaan nahay dad retailer ama dad yaryar aan nahay. So marka access ma u lihin inaan transaction ka sameyno suuqan forex-ka. Laakiin waxaan sameyneynaa broker ayaan dhex maraynaa dulaal. Dulaalkii aan marka account marka ka furano wuxuu siinaa maxaa la dhahaa user ama login iyo password uu siinaa. Login-kii iyo password-kii ayaa waxaa gelinaa MT4 kan software-kan oo aa gelinaa. Software-kan markaa geliyo access marka wuxuu i siinaa inaa markaas sidaas aad transaction ku sameeyo, aad trade qaato ama buy aa u qaato ama sell aa u qaato. So marka brokerada shirkadaha way kala duwan yihiin. Brokerada inta ugu caansan intaan waaye FOREX aa ka mid AFC aa ka mid FX Promise aa ka mid FX Open aa ka mid IBX aa ka mid Thinking aa ka mid FX CM aa ka mid dhammaan intaan waxaa waa broker FX Pro aa ka mid dhammaan intaan waa brokero. Brokerada marka waa waxa lagu kala duwan yahay. Sidee loogu kala duwan yahay? Ani oo kale waxaa i anficay FX Promise ayaa anfacday. Adina maxaa ku kacday FXCC. maxaa yeelay adiga kan waxaa ka rabtay inuu spreadkeeda hooseeyo ama maxaa la dhahaa wax kale aa ku dooratay oo in lacag bixiyo wadaa oo lacag shaqaysta bixiyo ku tusinaysa. Halka aniga kan aa wax kale ku dartay. So marka waxaa imaaday oo wax difference ama specific aa imaaday oo loo doonaan karaa. Qodob kale oo specific waxaa ka mid waa macluumaadka oo kale. Macluumaadka waxaa ka mid oo kale qofkaas step-ka xiga u baahan yahay waxaa waaye inuu macluumaad oo ku saabsan forex inuu helo. Marka qofka marka wuxuu sameynaya marka macluumaad oo baaraa istiraatiijiyooyin oo baranaa waxyaabo badan oo macluumaad badan buugag badan oo akhrina. Marka qofka marka website-yo badan oo qofkan wax ka fiirina lacagtan qaabka u socoto. Marka information-ka qofka hal information ma laga helaa. Qof walba information u gooni ayuu raadsanaa oo u bare. Website-yada waxaa jira oo newsyada laga fiiriyo oo qofaa wuxuu ku fiirinaa website my Facebook qofna wuxuu iska fiirinaa Forex Factory. So marka waa information-ka meesha laga helaayo waa lagu kala duwan yahay. Buugaagta la akhristo waa lagu kala duwan yahay. Ayadan intaas ka mid oo macluumaadka laga helo. Qof kasta marka qaabka oo information-ka u raadiyo ayay ku xiran tahay cilmi baaris uu sameysto. Qodobka la xiga oo waxaa loo baahan yahay oo specific waxaa waaye waa Forex Journal. Forex Journal maxaa la dhahaa waa inaad diiwaan gelisay maxaa la dhahaa trade walbo oo aad qaadatay si markaan ujeedada laga leeyahay waxaa waaye inaad ogaatid war waxa aad sameynaysid ma yihiin wax shaqeynayo. Maxaa yeelay qofka bini'aadamka maskaxdiisa waxyaabo badan ayaa ka dhex buuxaayo. Marka wixii dhan ma xifdin karo. Laakiin transaction walba ama trade walba oo aad qaadatay haddii marka aad samaysatay maxaa la dhahaa document oo ku diiwaan gelisay. Si hadhow bil kadib bishii markay dhamaato oo kale aad u fiiriso aad dhahdid war niyow meeqaa khasaaray meeqaa faa'iiday. So marka taas ayadana aad ay muhiim u tahay. Forex Journal-ka marka waa lagu kala duwan yahay. Dadaa waxay isticmaalaan Excel ahaan inay ku samaystaan, dadaa spreadsheet ku samaysto, dadaa waxay ku samaystaan maxaa la dhahaa Notion application. So ayadana waa lagu kala duwan yahay. So marka everything oo marka waxyaalihii document oo material khuseeyo oo insha Allah aniga waan ila wadaagi doonaa mar walba muuqaal aan kasoo samayn doonaa. So marka just un hadda waxaa waaye inaad fahantid oo ogaatid in Forex Journal ay aad muhiim u tahay. Qofkani uu ku ogaan karo in istiraatiijiyadiisa iyo wuxuu isticmaalayo inay tahay wax shaqeynaya iyo waxaan shaqeynaynin. Maxaa yeelay haddii aadan wixii diiwaan gelinin oo aad wixii samaysay haddaadan report garaynin sidee marka u ogaan kartaa waxa inay wax saxnaayeen inay wax khaldanaayeen. Haddaad saxdo waa diiwaan gelin haddaad khaladana waa diiwaan gelinay. Waxay kaa caawinaya marka in istiraatiijiyada ama waxa isticmaalaysid aa improve garaysid. Waxyaalaha kale oo lagu kala duwan yahay waxaa ka mid waa currency choice oo ah in qofkii lacag uu doorto.
lacagta maxaa waaye qofka lacagaha ugu waaweyn suuqa forex waa Euro USD, JPY USD wixii lacag waa soo aragnay. So maadaama toddobadan lacagood ay ugu waaweyn yihiin, qof kasta marka Jaws uu lahaana. Jawska maxaa waaye adigoo kale labadan lacag ugu horeyso Euro USD iyo JPY USD ayaa waxaa baratay behavior-keeda ama hab-dhaqankeeda aad baratay. So marka iyada ayaa ku trade gareyne, iyadaa isticmaaline. Sababta loo dhahayo maxaa current Jaws waxaa waaye maadaama suuqan 7 lacagood ay tahay, 7dan lacagood ee lacag kala soo simanaya oo guud ahaan 28 lacagood eh, haddii trading view-gaaga ama maxaa la dhahaa meeshaada oo watch list-gaaga hadii lacagahan aad soo saftay, meesha ugu hooseyso 7dan lacag aad soo qaadatay, 7 lacag markaad soo qaadatay aa meesha saftay, ma tan fursadeedaa fiirisaa, mise tan fursadeedaa fiirisaa, tan fursadeeda maa fiirisaa, tan fursadeeda maa fiirine. So qofkii wuxuu sameynaya marka wuu wareeraa. Marka fursadihiina way dhaafayaan. Marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu 2 lacag ama 3 lacagood ama 4 lacagood inuu doorto si uu u control karo ama xaaladahooda oo ula socon karo si aysan u dhaafin fursadihii uu markaas qaadan lahaa. Muuqaalkeeni intaas ayaa ugu muhiimsaneyd, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe, like, share, comment. Haddii aad tahay saaxiibada hore noola joogana waxaan kaa codsanaa inaad janaalka sii share gareysid. Aad iyo aad aa u mahadsantihiin.